بسم الله الرحمن الرحيم كسعته مواطنين الصوماليات جارهان بجدليدا كهول قشا قبل كان بنادر عاصمة مقالة مقدشو وحاجري عبشوين كإيماني بجدليدا كاسو كو آدنا إن لغا قاضا يلعك بحسن لعقه كواجبي شرعي قاها لعقها سلوغو شاقي إني تهي بدقبك موتوينك ودان لواتن $7 maamulka gobolka banaadir dawladda hoose xamar wuxuu cadeynaya in wax shaqo ah uusan ku lahayn lacagahaasi laga qaaday mootooyinka bajaajta ee ka howlgala gobolka banaadir gudoomiyaha wuxuu faray laamaha ammaanka iyo qaybaha kala gedisan ee howlwadeennada maamulka gobolka banaadir inay dabagalaan howshaasi waxaana lagu guuleystay maalintii shalay ahaa in gacanta lagu soo dhigo rag kambaniye lahaa oo iyagu ka shaqaysanaya howshaasi bajaajleedana ka qaadayay lacaga ka baxsan wixii ku waajibay kuwaas oo hadda gacanta dawladda ku jira xabsina la dhigay isla markaana lala tiigsan doono sharciga gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wuxuu u mahad celinayaa bajaajleeda ka howlgasha gobolka banaadir oo mar walba u hogaansama awaamiirta ka soo baxa maamulka gobolka banaadir isla markaana wada shaqeyn dowla leh dawladda hoose xamar wuxuuna u sheegayaa in aan laga qaadi karin wax ka baxsan lacagihii sharciga ahaa ee ku waajibay sida lacagaha hadda laga qaaday maalmihii u dambeeyay kuwa hadda laga qaadayna ay cadaalad heli doonaan gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu u rajaynayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka howlgasha kuna ganacsata ku shaqeysta bajaajleyda inay shaqadooda si caadi ah u gutaan wax xadgudub ahna uusan aqbalaynin in lagu sameeyo bajaajleydaasi wixii hadda ka dambeeyana cabashadooda ay si toos ah ugu soo gudubsadaan maamulka gobolka banaadir qaybta cabashada si dhowna lala shaqeyn doona insha Allah